Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, the newest NASA astronaut, Jonathan Kim. You're a Navy SEAL with a degree from Harvard Medical School. Wuxuu ninkani na tusiyey in aysan jirin dunidani wax mustaxiil ah oo aan la gaari karin. Qof kasta oo ku nool meerahani dhulka waxa uu suuragali kara in uu lahaado xirfado badan oo aad u kala duwan. Waa haddii uu aaminsan yahay qofka kartidiisa, dhan kalena uu la imaado dadaal iyo juhdi joogto ah oo aan kala go' lahayn. Wuxuu kaloo ninkani meesha ka saaray aragtida dad badan aaminsan yihiin oo ah in qofka bini'aadamka uusan baran karin waxyaabo badan oo kala duwan. Waxay nagu dhaheen bini'aadamku waa makhluuq liita oo daciif ah, mana baran karo culuum iyo xirfado badan oo kala duwan. Waa in uu ku ekaadaa hal fan, welibana waa in halkaasi fan kaga sii takhasusaa hal qayb. Waxaa halkaani la bahdilay maskaxdii bini'aadamka, waxaana howlgab laga dhigay qayb weyn oo ka mid ah maskaxda basharka. Ma diidani in qofka loo gaar yeelo takhasus gaar ah oo markaasi ummaduhu baahi weyn u qabaan, laakiin waxaan ka hor imaadsanahay aragtida guud ee diidan in dadka fanuun badan bartaan. Dabcan hadda waxaa jira dad badan oo leh maskax furan oo cajiib ah, laakiin nidaamyada waxbarashada ku qasbeen in uu qofkaasi hal fan ku ekaado. Waxaan wada ogsoonnahay in dadkii hore ee muslimiinta laga helayo shakhsiyaad badan oo mawsuuciyiin ah, kuwaa oo si heer sare ah u bartay culuum badan oo kala duwan oo isugu jira maadi iyo diini. Haddaba aan dib ugu laabto mawduucayda. Ninkani 3 xirfad bartay waxaa lagu magacaabaa Johnny Kim. Wuxuuna sanadkii 1984 ku dhashay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Labadiisa waalid waxay ka soo haajireen 80meeyadii dalkooda Koonfurta Kuuriya, waxayna bilowgii 80meeyadii ayagoo nolol wanaagsan iyo horumar raadinaya soo galeen dalka Mareykanka. Johnny ayaa ahaa yaraantiisii wiil aad u xiiseeya barashada xirfadaha kala gedisan, wuxuuna yoolkiisu ahaa barashada xirfado badan oo kala duwan. Si kastaba ha u adkaadaane, mana ka daalaynin Johnny xaqiijinta riyooyinkiisa. Markii uu ka qalin bedeshay dugsiga sare, Johnny ma aadin jaamacadda ee wuxuu bilaabay barashada xirfadiisa koobaad. Wuxuuna ku biiray kulliyadda tababarada ciidanka. Halkaani ayuu ku qaatay tababaro kala duwan. Markii ay u soo dhamaadeen tababarada, wuxuu xubin firfircoon ka noqday ciidanka badda ee dalkiisa Mareykanka. Wuxuuna ka mid noqday ciidankii loo diray Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Ciraaq, halkaas uu kaga qayb galay dagaallo faraha loogu gubtay. Wuxuuna Johnny indhihiisa ku arkay askar badan oo saaxiibadii oo hortiisa ku dhimanaya iyo kuwo kale oo si xun u dhaawacmaya. Johnny ayaa ciidanka ka helay bilado iyo darajooyin badan, laakiin waxay wax walba isbedeleen markii la soo gaaray sanadkii 2006 oo Johnny iyo saaxiibiis galeen dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Johnny ayaa markaani nacay dagaalada maadaama uu arkay askar badan oo saaxiibadii ah oo dagaalka ku dhintay iyo kuwa kale oo si xun u dhaawacmay. Wuxuuna intaa wixii ka dambeeyay Johnny go'aansaday in uu ka baxo majaalkan, isla markaana barto cilmiga dhakhtarnimada si uu u badbaadiyo dadka ku dhaawacma dagaalada iyo shilalka. Wuxuuna Johnny ku biiray kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Harvard. Wuxuuna dhowr sano kadib qaatay shahaado caafimaad. Waxaana Johnny u suura galay in uu gaaro qayb ka mid ah riyadiisa, asigoo dhakhtar ka noqday mid ka mid ah isbitaalada dalkiisa Mareykanka. Inta uu shaqadaani dhakhtarnimada ku jiray, wuxuu Johnny daaweeyey bukaanno badan oo qabay dhaawacyo kala gedisan. Wuxuuna noqday dhakhtar laga jecel yahay isbitaalka oo aad u naxariis badan. Haddaba Johnny waa nin jecel in uu sahmiyo qaybaha kala duwan ee xirfadaha. Horey wuxuu u soo noqday askari, ilaa kolkii dambe uu askarinimada ku gaaray darajooyin sare. Hadda wuxuu ku dhex jiraa shaqada caafimaadka, wuxuuna shahaado caafimaad ka soo qaatay kadib markii uu dadaal iyo juhdi joogto ah sameeyey mid ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sareeya dalka Mareykanka. Haddaba Johnny inta uu shaqadaani dhakhtarnimada ku jiray, wuxuu ogaaday in wakaaladda NASA albaabada u furtay
dadka doonaya in ay mustaqbalka noqdaan cirbixiyaano ka tirsan wakaaladda. Johnny waxa soo jiitay arrintaani waayo wuxuu ogsoon yahay ahmiyadda weyn ee ay leedahay wakaaladani. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday in uu ku biiro wakaaladda NASA. Nasiib wanaag wuxuu Johnny ka soo dhex baxay 18,000 oo ruux kuwaa oo wakaaladda u soo gudbistay codsigooda ku soo biiritaanka. 2 sano oo tababar adaga kadib, Johnny wuxuu noqday cirbixiyeenkii ugu horreeyay ee asal ahaan Kuuriya ka soo jeeda ee ka mid noqda wakaaladani NASA. Hadda waxaa la filayaa in asaga iyo kooxdiisaba wakaaladda u dirto meeraha Mariiqa iyo Dayaxa, ka oo muddo badan aysan tagin wakaaladda NASA. Johnny ayaa aad u daneynaya in uu mar cagaha dhigo meeraha Mariiqa. Dhan kale wuxuu Johnny ku guuleystay noloshiisa gaarka ah. Waa aabbo xaas iyo 2 cunug leh.